kusoo dhawaada saaxiibayaal filimkeena maanta inta aan muuqaalka bilaabin YouTube subscribe dhe muuqaalkana like share oo kuma xasuusta daawashada adduunka oo dhan burbur weyn ayaa ka dhacay waxaana ku nool hal qof oo ka badbaaday burburka waxa uu ku nool yahay beer iyada iyo aygeeda marar badan ayay u safraan magaalada si ay cunto uga soo qaataan iyada oo hubinaysa in jirkeeda oo dhan ay qariso si uusan u gelin shucaaca isla markaana qaadato taanjiga oksijiinka si hawada u neefsan beerta adna waxa ay ku taalaa dooxada sidaa darteed markasta ay magaalada u baxdo waxa ay noqonaysaa waqti badan ku qaadato inay gaarto balse dhibkaas ay u qalantaa maadaama dooxada aysan shucaaca ka jirin markasta oo ay raashin soo qaadato si fiican ayay u dhaqdaa jirkeeda habeenkii aygeedu waxa uu la seexdaa sariirta si uu hel ugu noqdo inta badan way ka caajistaa shaqada hawl maalmeedkeedu waxa uu ka kooban yahay hubinta xoolaha iyo beerta fiirinta darbiyada iyo dabinada ay dhigta keenta aygeedu waxa uu ku caawiyaa inuu ku raadiyo urta bakaylaha maalin maalmaha kamid ah adna waxa ay la yaabto baabuur jidka yaala iyadoo rabta inay eegto aygeedu uu ciyayaa isagoo uga digaya qof meel ku jira waxayna isku qariyaan cawsa dheer waxayna arkaan nin xiran dharka difaaca shucaaca oo u imaanaya gaarigiisana qaata kahor inta uusan sii wadan safarka adna oo ka yaabta qof kale oo badbaaday si qarsoodi ayaynu u raacdaa ninku waxa uu adeegsanayaa qalab uu ku hubinayo in aagan shucaaca ka jiro markaas ayuu siibaa koofiyadda si uu hawada nadiifka u neefsado Johan ayaana ku farxaya isagoo qaylinaya oo dharkii iska siibay adna oo ka soo baxday qarsoonida waxay aragtaa Johan oo ku dawaalanayo webiga wayna ku oradaa iyada uga digaysa webiga laakiin iyada qora ayay wadataa Johan waxa uu maleynayaa inay u hanjabayso isaguna qorigiisa ayuu ku taagayaa isagoo xabad cirka u rida isagoo weydiinaya meesha dad kale ay ku sugan yihiin adna ayaa gacmaheeda kor u taagta waxayna u sheegtaa in biyahaas ay shucaaca leeyihiin Johan oo cabsi weyn dareemaya wuxuu si dhaqso ah uga laabtaa gaarigiisa wuxuuna qalabkiisa ku hubinayaa in biyuhu shucaaca leeyihiin isagoo mataqaya ayuu carraa soo cirbad daawo isugu duro wuxuuna adna ka codsanayaa inay ku durto cabsi darteed waxa uu tuuraa qorigiisa isagoo ku dhaaranaya inuu wax yeeleynay adna ayaa ku durto daawada waxayna geysaa gurigeeda Johan waxa uu sharaxayaa inuu daawooyinkan u baahan doono maalin kasta sidoo kalena uu doonayo inay dharkiisa gubto waxa uu sidoo kale codsanayaa haddii uu geeriyoodo in jirkiisa la gubo guriga adna Johan waxa ay ku nadiifinaysaa biyo nadiif ah kadibna sariirta ayay ku jiidaa maadaama uu si fiican u socon karin subaxdii waxa ay ku noqotaa gaarigiisa si ay u soo qaado alaabtiisa oo ay ku jiraan sawirro isaga iyo haween maalmihii xiga adna si joogto ah ayay u daryeelaysa Johan iyadoo hubinaysa jirkiisa heerkulka si fiican u qoodaysa daawooyin siisa ugu dambeyntii Johan wuu fiicnaadaa sariirtan uu ku kacay inkastoo adna way ka caawiso socodka waxayna u sharaxdaa in aabeed ku amray qoyskeeda in ay joogaan beerta maadaama ay dooxadu ilaalinayso qoyskeedina maalin ayay bixeen si ay dad kale u raadiyaan balse dib uma soo laaban Johan ma fahmi karo sababta dooxada aysan shucaaca u lahayn uuna xanaaqa isagoo fahmin balse adna way ku mashquulaysaa Johan weli daciif waay inkastoo Johan weli daciif yahay uusan ka caawin karin shaqada beerta adna waxay u sheegaysaa inaysan isticmaali karin cagafta maadaama shidaalkii ka dhamaaday Johan ayaan u sheegaya sida looga shaqaysiiyo bamka gacanta markaas adna waxay u ordaa kaalinta shidaalka aad ayayna ugu faraxdaa markay guriga shidaalka keento Johan ayaana ka daawanaya meel fog isagoo adeegsanaya muraayadaha qoriga daqiiqada kadib adna waxay ku faraxsan tahay inay ka shaqaysiisto cagafti aygeeduna si xiiso leh ayuu ugu daba ordayaa habeenkii cashada Johan waxa uu arkayaa adna oo ducaysanaysa kahor intaysan cunin cuntada wuxuuna u sheegayaa sababta uu badbaaday markii musiibada ay dhacday waxa uu ku sugnaa bankar dawladeed oo cilmi baar ahaan ugu shaqay jiray ugu dambeyntiina wuu ka tagay maadaama uu dareemay inuu bankarka ku xayiran yahay uuna doonayo nolol dhab ah wuxuuna xasuustaa sawiradii uu watay balse waxa uu cadeynayaa in haweeneyda ku jirta sawirada aysan xaaskiisa ahayn maalintii xigtay adna waxay kalluumaysi u aadaa harada halkaas oo Johan indhaha ku hayo kadibna waxa ay wada karinayaan kalluunka adna waxay u sharaxdaa in harada biyaheeda iyo ceelka ay ka yimaadaan meel hoose oo dhulka ah balse harada jilaalka way barafowdaa adna waxay ka shaqaysaa dhibaatada ay la kulantay jilaalkii hore markii matoorkii korontada uu ka xumaaday Johan ayaa baaraya matoorka waxa uuna xaqiijinayaa in matoorku uu duqoobay gabi ahaanna gubtay adna waxay isku dayaysaa inay ku xirto DVD balse Johan waxa uu sheegayaa in matoorka hore u duqoobay oo burburay adna ayaa kaftanka dhigaysa tijaabooyinkii iskuulka ee baradhada taasoo Johan ku soo rida fikrad wuxuuna ka shaqay karaa hab biyo oo awood u siin kara matoorka isagoo adeegsanaya webiga weyn iyo biyo dhaca laakiin waxa uu baahan doonaa qoryo badan wuxuuna doonayaa inuu burburiyo kaniisadda adnana way ka hortimaadaa aragtidaas iyadoo ku doodaysa in aabeed kaniisadda dhisay waxayna aaminsan tahay in kaniisaddu sabab ay u tahay in dooxadu ay ka badbaado shucaaca Johan weli kuma qancin isagoo doonaya weli inuu burburiyo kaniisadda balse adna weli ma ogola habeenkii aygu waxa uu bilaabayaa inuu si xoog leh u qayliyo albaabka subaxdii xigtay adna waxay ku mashquulaysaa hawlaheeda caadiga ah halka Johan oo dayactir ku sameynaya mashiinada kadibna waxa uu aadayaa suuq ku yaala jidka si uu cunto uga soo qaato balse markuu ku soo laabto guriga waxa uu noqdo mid aad u sakhraansan Johan waxa uu bilaabayaa inuu tuuro kartoonada isagoo sheegaya inuu bartay waxa adna ay jeceshahay isagoo eegaya raashinka ay qaadatay iyo kuwa ay ka tagtay habeenkii adna waxay isku daydaa inay caawiso si uu sariirta u koro balse Johan wuu xanaaqayaa si xoog leh ayuuna darbiga u riixay isagoo u sheegaya inuusan u baahnayn caawimaad adna oo ka cabsata waxa ay u carartaa qolkeeda maalintii xigtay Johan waxa uu isku dayayaa inuu kuma ka soo qaato beerta laakiin waxba kama helin markaas ayuu adna ka raali gelinayaa dhaqafkii xumaa mar dambe adna waxa ay tagtaa kaniisadda si ay organ u ciyaarto waxay aragtaa qof meel fog ka daawanaya balse markay banaanka u soo baxdo cidna ma joogto waxayna u malaynaysaa inuu yahay Johan laakiin Johan waxa uu ku dhaartaa inuusan halkaas tegin habeenkii waxa ay wada cunaa casho qurux badan wayna wada ciyaaraan daqiiqada kadib waxa uu hubinayaa adna oo ku jirta qolkeeda
dharkeeda iyaduna si degdeg ah ayay dharkeeda u xirataa laakiin Johan ayaa ku amraya inay si fiican isu qariso Adna oo niyad jabta ayaa isweydiinaysa waxa ay ku qaldan tahay Johan waxa uu xaqiijinayaa inay soo jiidanayso balse haddii ay isu dhawaadaan inay wax walba isbedelayaan sidaa darteedna waa inay is asturto subaxdii xigtay Adna waxa ay Johan u sheegtaa inuu wax ka qaadan karo kaniisadda haddii uu doonayo laakiin Johan wuu diidayaa si aysan u xanaaqin mar kale muddo kadib Adna waxay hubinaysaa dawinnada markii si lama filaan ay buurta ugu ordo isagoo qaylinaya Adna waxa ay la kulantaa nin lagu magacaabo Saleb kaasoo dhaartay inuusan waxyeello u wadin oo kaliya biyo doonayo Adna waxa ay Saleb geysaa guriga Johan waxa uu isku dayayaa inuu toogto laakiin Adna ayaa joojisa Johanna waxa uu adeegsadaa qalabkiisa si uu u hubiyo Saleb inuu leeyahay shucaac Saleb waxa uu qirtaa inuu xaday ukunta maadaama uu ka baqay inuu weydiisto Saleb uu ka badbaaday shucaaca maadaama uu ahaa shaqaale macdanta oo ku jira dhulka hoostiisa markii musiibadu dhacday shaqaalihii macdanta qaar ayaa isku dayay inay dibadda u baxaan laakiin mar dambe dib uma soo laaban isagu waxa uu doonayay inuu u safro dhanka koonfureed wuxuuna codsaday inuu habeenkii la seexdo ballanna ka qaaday inuu subaxii tagi doono qalabku waxa uu muujinayaa shucaac yar oo ku jira jirkiisa wuxuuna qirtaa inuu daalan yahay madar badanna u matagay Johan ayaana u ogolaaday inuu dhowr maalmood la joogo si uu u fiicnaado Salebna waxa uu bilaabayaa inuu teendho dhisto laakiin Johan ayaa u sheegaya inuu guriga seexdo cashada Saleb waxa uu duceystaa isagoo la socda Adna wuuna qoslaa isagoo leh ma rumaysan karo inaan soo gaaro halkan wuxuuna ka sheekeeyaa safaradiisa Johan sidoo kale wuu ka sheekaynayaa isagoo xasuusinaya wiil yar oo ka xaday gaarigiisa cunto wiilkaas waxa uu aad uga xanuunsaday shucaaca wuxuuna Johan ka codsaday inuu dilo si uu uga baxo dhibkan laakiin Johan wuu diiday inuu dilo waxa uuna uga tagay jidka Saleb waxa uu sheegayaa sheeko isagoo xasuusanaya shaqaalihii macdanta hal nin oo rabay inuu baxo ayaa dadka intii kala dilay ka hor inta uusan dhiman isaga Adna waxay naxariis u muujisaa Saleb Johanna wuu ka murugooday maadaama aysan weligii sidaas ula hadlin isaga kadib markii ay Saleb guriga ku soo wareejiso Johan waxa uu ku canaantaa Adna inay nin shisheeyaa aad ugu dhowdahay Adna waxay u sheegtaa si ay u adkeed inay kaligeed noolaato kadib markii ay qoyskeedii ka tageen Johan ugu dambeyntii waxa uu qirtaa inuu dilay wiilkii wuxuuna ka shakisan yahay inuu ahaa walaalkeed sidaa darteedna waxa uu ka raali gelinayaa iyada Adna way oydaa laakiin waxay ku tiraahdaa haye muddo kadib Johan iyo Saleb waxay u baxaan ugaarsi waxayna ka sheekaystaan in idaacaddu soo sheegtay inay dadku nool yihiin koonfurta Salebna waxa uu doonayaa inuu gaaro halkaas laakiin Johan waxa uu aaminsan yahay inay cidna halkaas ku noolayn markaas ayaa ugaarsi u soo baxa Saleb ayaana ku kaftamaya in ninkii markii koobaad toogtaa uu guursan doono Adna Johan uu ka xanaaqa Salebna wuu qoslaa isagoo leh kaftan kaliya ayuu ahaa intay Turkiga daba socdeen Johan waxa uu sharaxayaa fikradda garaangarta biyaha iyo sababta uusan u dhisi karin ugu dambeyntii Johan ayaa toogta habeenkii Turkiga ayay cuneen balse Saleb ayaa mar kale soo qaaday fikradda garaangarta taasoo qof walba xanuunjisa Saleb waxa uu soo jeedinayaa inay kaniisadda burburiyaan si ay u helaan alwaax taasoo Adna ku qasabtay inay ogolaato maalintii xigtay saddexdooda waxay si wadajir uga shaqaynayaan burburinta kaniisadda muddooyinka Saleb iyo Adna ayaa isu soo dhawaansho ka dareen Johan taasoo ka xanaajisa intii ay shaqada ku jireen waxayna sidoo kale u baxaan wadooyinka si ay u soo qaataan tiirarka habeenkii dambe Adna oo murugaysan waxa ay booqataa burburkii kaniisadda Salebna waxa uu isku dayayaa inuu qalbigeeda dejiyo iyagoo socod ku sheekaysanayaan wuxuuna uga sheekaynayaa in aabihii uu isku dayay inuu noqdo wacdiye balse dumarka iyo qamriga doortay Salebna waxa uu yiraahdaa iimaankiisu weligii ma lumin wuxuuna aaminsan yahay in kaniisadku yahay waxa ay dooxada ku badbaaday isaga iyo Adna loo doortay inay nolosha dib u soo dhisaan Adna aad ay ugu faraxsan tahay in qof fahmi kara ay hesho maadaama Johan uusan rumaysnayn markii ay guriga ku soo noqdaan Johan waxa uu ka daawanayaa guriga hortiisa habeenkii Johan waxa uu Adna ku canaanaya inay la socoto Saleb maadaama uu fahmay inay u baahan tahay oo fahma Adna way oydaa iyadoo fahmi la sababta uu Johan u diiday maalmaha way sii socdeen iyagoo ka shaqaynaya garaangarta biyaha markii ay qaybta koowaad rakibayeen Saleb ayaa xirtay dharka difaaca isagoo doonaya inuu biyaha wasaqaysan galo si uu shaqada u qabto habeenkii waxay ku dabaaldegayeen muusig iyo ciyaar waxayna wada quuseen harada waxayna ciyaarayaan ciyaar in dhala laga soo qabto biyaha hoostooda Johanna waxa uu dareemayaa inuu yahay saddexeeye qof aan la rabin maadaama Adna iyo Saleb had iyo jeer indhaha isku eegayaan markay ku soo laabtaan guriga Johan waxa uu sheegayaa Adna inuu jecel yahay balse Adna wax jawaab ah kama bixin guriga Adna waxay seexataa sariirta Johan laakiin maadaama uu saad u sarqaansanaa waxa uu seexay si degdeg Adna waxay u tagtaa Saleb waxayna la seexataa habeenkii subaxdii intii ay quraacda ku jireen Saleb si tartiib ah ayuu u taabtaa madaxa Adna Johan oo arkaya taasoo Adna ka xishootay si ay miiska uga kacdo labada nin waxay isku raaceen inay shaqada wadaan iyadoona Adna ka qayb qaadan balse haddana waxay ka sheekaystaan sida ay iyada u gaar tahay Salebna waxa uu weydiinayaa Johan inuu ka shalaynayo imaatinkiisa balse Johan wuu diidaa isagoo leh garaangarta ayaan dhamaystiri doonaa Saleb ayaa qoslaya isagoo leh hadallada Johan ma aaminsani wuxuuna u muuqdaa inuu ka masayrayo galabtii mar kale waxa uu xirtaa dharka difaaca si uu Johan u caawiyo rakibaadda qaybihii u dambeeyay mashruuca waxayna si taxaddar leh u dhamaystiraan shaqada ugu dambeyntii garaangartii si fiican ay u shaqaysaa kadibna waxa ay sameeyaan dabaaldeg gaaban laakiin markuu Saleb isku dayo inuu dib u soo kaco dhagax qoyan ayaa la sambirraxda nasiib wanaag Johan ayaa xarigii si adag u qabsada taasoo ka badbaadisay inuu dhaco Saleb markii
markii dambe ayuu haddana simbirraxda. Johan ayaa haddana qabtay xarigga, balse markaan sooma saarin, waxayna iska eegeen indhaha iyagoo aamusan. Mar dambe Johan waxa uu ku soo laabtaa guriga isagoo isku dayaya inuu raalingelin ka bixiyo habeen hore, wuxuuna u sheegayaa in Salib uu baxay si uu u soo baadigoobo bulshada ku nool koonfurta. Adnana way diidaysaa inay aaminto, waxayna isku dayaysaa inay raadiso, laakiin meel kasta ay tagto way weyday. Johanna waxa uu dhammaystirayaa xirxirka fiilooyinka. Ugu dambeyntiina beertii iyo xaafaddu waxay helaan koronto. Markii dambe markii Adna soo laabato, waxay ogaataa in Johan oo organkii u raray qolka xoolaha, waxayna fadhiisataa si ay u ciyaarto. Johanna wuu ku farxaa isagoo ku ciyaaraya muusigada. Halkaas ayuu ku dhamaaday filimka. Waa ku mahadsan daawashadaada. Muuqaalka like, share, YouTube, subscribe.